widaayo wamayaagay weejidowkay widaanti eelka dhiidii in weerow makiinka kooyaas. waxaan joognaa magaalada Qansax Dheere oo xaqiiqdii ka mid ah degmooyinka dadka Soomaaliyeed ku dhiban yihiin oo nimanka khawaarijta xisaarka saareen. dalkana guud ahaan waxaa ka socdo halgan loogu jiro khawaarijta in lagula diriro. gobolo badan iyo deegaano badan ayaa laga xoreeyay khawaarijta. maalmahan dambe waxaan si aad ah aan ugu mashquulsaneen in deegaanada Koonfur Galbeed ay u diyaar garoobaan dagaalka khawaarijta lagula jiro. shaqadaas soo socotay waxaan rabaa hal kelmad inaan ku soo koobo. kelmadaasoo abwaan hore yiri, abwaankana hadafka uu kelmadda ka lahaa waxay ahayd in qof walba waxa uu doonayo uusan ku helaynin si maaragta sahlan ama si dhayil ah, gaar ahaan xorriyadda iyo maaragta arrimaha waaweyn oo masiiriga inaanan lagu gaaraynin iyada oo aanan waqti iyo maal iyo naf iyo maaragta ciriiri intaba loo horin. wuxuu yiri widaayo wamayaagay weejidowkay widaanti eelka dhiidii in weerow makiinka kooyaas. wuxuu la jeedaa wadaanta hadday ceel ku dhacdo inaad tiraahdo wadaanay soo bax kuma soo baxayso. waxay u baahan tahay inaad ceelka guntiisa aad gaarto, biyaha lugaha la gasho, dhiiqada lugaha la gasho, masaska ceelka ku jira aad dhex marto, riskigaas aad maaragta u qaadato si aad wadaantaada ugala soo baxday. abwaan Tarash ayaa kelmadaas yiri. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed, inaanan wadaantaasi u yeeris ku soo bixin. taasoo la micna khawaarij inaan fadhino inay nooga hareen. khawaarij inaan fadhino oon fiirino inaanan xorriyadda uga helaynin. waxay u baahan tahay in loo dhinto, waxay u baahan tahay in la kor istaago ciriiriga iyo problemka jira, la kor istaagay u baahan tahay. waxay u baahan tahay in maal loo xuro, waxay u baahan tahay naf in loo huro. waxaan rabaa reer Koonfur Galbeed guud ahaan meel walba oo ay joogaan in ay gacmaha inta isqabsadaan ay ka shaqeeyaan dib u xoreynta deegaanadooda. aad u mahadsantiin.